cajiidaada marka ugu horeysa inta isku barteen aniga horta meeshan ka shaqeynayay qayb kamid ah ay ka shaqeynaysay muddo 3 bilood ay shaqada ka shaqeynaysay aniga maan arkin in dhama saarin muddo kadib waa arkay gabadhii markaan arkay wallahi aniga weligeena kuma fikirin waxyaabo xun inaan la aado ama inaan shumiyo ama gacanteeda inaan taabto xataa maradeeda markaan la sheekaysan inay gaarto igu adkeed macnaha markaan agteeda joogo waxaan noqonaa sida qof istaama baraf la dhex geliya camal waa qabowa gacmahan ka dhida weligay ma dhididan gacmahan ka dhidida wadnaha waa igaraacmaa macnaha maanta dhan waxaan rabaa inaan fiiriyo inaan wax u sheegaan rabaa waxna uma sheegi karo marka dambe taleefanaan kala qoranay habeenkii markaas xoogaa isdhiirigeliyey arrintii markaas u sheegay muuqaal kale ayaan idin hinahay baabaje ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay sida ay isku barteen isaga iyo xaaskiisa waxa uuna sheegay in nin weliba uu horumar gaaro ay ka dambeyso xaaskiisa haddaba waxa uu sheegay baabaje in meel uu ka shaqeynayay ay ka shaqeynaysay xaaska uu qabo laakiin markaasi isma aysan arkin muddo 3 bilooda waa sida uu sheegay baabaje haddaba muddo kadib ay arkeen waxa uu sheegay inay ku adkaatay inuu la hadlo islamarkaana uu muujinaya cabsi iyo gariir fara badan inkastoo arrimahaasi lagu yaqaano dadka inta badan jacaylka uu dhabta ka yahay baabaje waxa uu sheegay inay ku adkaatay sidii uu markaasi dareenkiisa uu kala hadli lahaa ama uu sheegan lahaa jacaylka iyo keelitaanka uu qaaday laakiin waxa uu sheegay ugu dambeyn inuu ku guuleystay sidii uu markaasi nambarka uga qoran lahaa ama uu weydiisan lahaa iyaduna kuma aysan xujeynin wax shardiga nambarka hore ayay ka siisay haddaba waxa uu sheegay in habeeno badan uu isku dayay sidii uga dhaadhicin lahaa rabitaankiisa iyo keelitaankiisa iyaduna waxba kuma aysan xujeynin waa ay soo dhaweysay baabaje sidaan la wada socono waxa uu yahay amaba uu ka mid yahay dadka baahiyaha gaarka qaba oo lugaha hoose uu naafo ka yahay laakiin dadka badankii waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan islamarkaana ay qofka bini'aadamka uga tagaan duruufta ruux bukaanka kugu nacay adoo baahan kaa tag isama kuma banaani alla barasho wacana biiwa adduunye maxay lagu boglaysaa howlahaagu badana dadka badankii ayaa laga yaabaa inay inta badan shaqsiga ay ku raacaan lacagta ama quruxda laakiin xaaska baabaje waxa ay ku raacday dabeecadiisa iyo weliba sida uu yahay shaqsi furfuran haddaba saaxiibayaal baabaje waxa uu ka sheegay in uu caqabado badan ula soo kulmay jaceylkii intii ay wada socdeen isaga iyo jaceylkiisa laakiin hadda ah xaaskiisa ilmaha u dhashay waxa uu sheegay inuu ahaa shaqsi markaasi aan garab badan haysanin dhaqaalana kuma uusan tiirsanayne waxa ay isku heshiyeen isaga iyo weliba jaceylkiisa inay isguursadaan aabaheeda ayuu ka doontay kadibna waxaa la weydiiyey su-aal ah ma dhaqan kartaa waxa uu sheegay inuu dhaqan karo islamarkaana uu biilan karo sidoo isaga uu sheegay xilligaasi wax lacaga ma uusan haysanin deetana qalbiga ayuu taajir ka ahaa waxa uu yidhi waan dhaqan karaa haddaba saaxiibayaal durbagu waa la siiyey deetana waxa uu bilaabay markaasi sidii uu ku guursan lahaa isagoona dejiyey qorshooyin badan uu ku heli karo xaaskiisa haddaba saaxiibayaal baabaje iyo weliba xaaskiisa ayaa hadda wada jooga islamarkaana waxay isku dhaleen ilmo lugtu waa dhaqaajaha noolaha dhaweeyaha haddaad dhabar ka beeshana dhakhtarkaaga noqon lahaa haddaba dadka badankii ayaa laga yaabaa inay siyaabo kala duwan ugu fasirtaan jacaylka waxa uu yahay qofka bini'aadamka duruuftan waxaa uga tegi karo qof danaysta keliya fiirinaya dantiisa ama danteeda quruxdu wax weyn maahan adigoo maanta qurux badan ayaa laga yaabaa in qadar ay kugu timaado deetana waxyaabo badan aad la kulanto waxaa laga yaabaa adigoo maanta lacag haysta in hal mar aad faaruq noqoto deetana aad eber soo istaagto muhiimadu waxay tahay inaad qofka ku xulato qalbigiisa iyo weliba dabeecad wanaagiisa taas ayaana ku anfacaysa keenaysa inaad wada noolaataan haddaba baabaje waxa uu ka sheekeeyey xilliyada ka mida weliba roob da-aya way ku adkaatay inuu gurigiisa uu tago gabadhii uu qabayaa loo soo sheegay ninkeeda uu soo gudbi waayo diiqada ama meesha ay biyaha fadhiso deetana way u timid dhabarka ayay ku qaaday ilaa guriga ay ka geyso marwo kuu daacadoo kuu diinaxdaa dumar laga xushaa dahab iyo xariirkay doontabaa dusha loo sulaa haddaba saaxiibayaal baabaje sida uga sheekeynayo jaceylkiisa iyo marxaladii ay soo mareen nala daawada saaxiibayaal cajiidaada marka ugu horeysa inta isku barteen wallahi horta noloshaan aad ay weli badan tahay marmarka qaarkoodana waa kadis marmarka qaarkoodana waa lama filaan marmarka qaarkoodana
waxay kula noqonaysaa waxaadan weligaa arkinba markii wixii aad samaysay kadibna tixraac markaad u samaysid waxyaabaha qaar waxay kaaga dhumayaan qaabkii nolosha ay ugu soo bilaabatayba farxadda markaas aa heshid aa ka weyn aniga horta meeshaan ka shaqaynayay qayb ka mid ah ay ka shaqaynaysay muddo 3 bilood ay shaqada ka shaqaynaysay aniga maan arkin indha ma saarin muddo kadib waa arkay gabadhii markaan arkay wallahi aniga weligeena kuma fikirin waxyaabo xun inaan la aado amaba inaan shumiyo amaba gacanteeda inaan taabto xataa maradeeda markaan la sheekaysan inay gaarto igu adkeed macnaha markaan agteeda joogo waxaan noqonaa sida qof istaamo barafla dhex geliya camal waa qabowa gacmahan ka dhidida weligay ma dhididan gacmahan ka dhidida wadnaha waa igaraacmaa macnaha maanta dhan waxaan rabaa inaan fiiriyo inaan wax u sheegaan rabaa waxna uma sheegi karo marka dambe taleefonaan kala qoranay habeenkiiyaa markaas xoogaa isdhiirigeliyey arrintiiyaa markaas u sheegay wixii horta meesha ka guuxaayay iyo wixii ilaahay wato waa gooni qofka inaad ka hesho mararka qaarkood dhankaaga way ka imaan kartaa laakiin qof inuu ku jeclaado dartaada oo u ilmeeyo jecelkaas ilaahay keliya qalbiga ku abuuri kara waxay bini aadan samayn karaa maaha acamtu billah wallah hadda ka hor wiila wuxuu i dhahay waxaan jeclaaday gabar aana garanaynin magaceeda aana garanaynin gurigeeda aana garanaynin tilmaam kaloo aan ku tilmaamo qof yaqaana xataa aana garanaynin waddadan ku arkay xufay igu dhaaftay jidka ee ku dhaaftay oo istaagay ilaa ay wuxuu sugaayay maalinta kale ee jidka soo marto habeenkii ma uusan seexanin hal mar ma fadhiisanin wuxuu ilaalinaya saanta meesha ay dhigtay markaasaa abwaanada ka mid ah soo maray jibriil oo ku salaamay markaasaa wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay maanta o dhan intaan kugu marooya waa kugu soo noqonaya waa taagan tahay ma fadhiisanaysid waxaa cunta ma raadsanaysid dhibaatada ku haysta maxay tahay ma jirin telefon layskala hadlo mana jirin aalad kaloo layskala xiriiro mana jirin waxyaabo kaloo laysku soo qabto markaasuu fanaanka ugu sheekeeyey wuxuu yidhi waxaa i qabtay jaceyl aana garanaynin qofta aan jeclaaday heebteeda waxaa ahaaya xanuun aana garanaynin daawadiisa meel aan ka raadiyo waxaan u taaganahay oo aan aniga maanta o dhan u fadhiisan la'ahay wax ay yihiin aniga xataa ma sheegi kari laakiin meeshaan waxaa martay gabar qurux badan qalbigayga markii uu arkay sida leertii kale u daba raacay laakiin meeshay degan tahay ma aqaano waayaa magaceeda ii sheegaa la yidhi wuxuu yidhi magaceedana ma aqaano see loogu raadinaa qofkaas jecelka uu ka xanuun badan yahay siyaasadda wuuna ka adag yahay kursiga lagu fadhiisto oo madaxtinimada loogu tartamo wuu ka adag yahay jecelka laakiin waa jecelkan hadda socda ma aha oo gabarta ku jecela markii ku dhahdo afkale geliyaayo oo faransiiska lagu dhagaayo oo isla markii calafanax loo soo baxsaayo ma ahan jecelka hadda imaadiya waa ku jeclaa marada waa la feedooyaa mana rabo jecelka loo soo jihaadi waayo dheh jecelka loo soo jihaadi loo jilba murxi loo dhibaatoodi xeebta loo fadhiisti loo fikiri la murugoodi ظروف البوكوس تقول عليهن لعب دي هيسن حتى اتعيسن له إيميل أنا هذا من كيغا والس كسومر مرامي اي من كيغي لسكا سومريني مرضى محاواي يا معاوستاني انا ما بقى مديدي معاني ما يراهني مجرى وركاسي maya abo ma jire warkaas meel ku xoore miirka adeege mininkaaga moogaanta ma la soo maraaye meelan aado mininkayga waa la iska soo marmaraamiyaay ani ida darji ma wada fadhiisanin oo caadi ma wada sheekaysanin inaan meel ku balami iska badaabo horta nafta maba isiinaysaba kaalay ii imaaw ama aan ku imaado inaan dhoo nafta maba isiinayninba kadib ilaahay calaf war isku keen daray wax yar aan wada soconay laakiin wax yar aan wada soconay ada bil iyo bar camal ay ahayd laakiin waxay ka badnaayeen 10 sano iyo 20 sano iyo 40 sano ka badan ayay ahaayeen waxa keenayo xiriirka wanaagsan qalbiyadii isdoortay daacadnimada la isugu sheekeenayo beento la ilaaliyay qof walba qaladka laga dhooray
erey qaldan aan isdhehaynin xiriirka oo wanaagsanaa waqtiga lagu ballamay oo aan laga bixaynin ballantana la adkeynayay taleefanka la iska soo wacaayay kaara go-ay aan la dhehaynin qad kale ma uusan jirin si fiican oo qurux badan aan taleefanka cadiga wada sheekaysan jirnay internetka waxaan diidayna xataa mararka qaar connectionka in uu go'o waxaan kusoo shubanayna kaarka hormuud saasaan ku wada sheekaysanaynay kadib waa iscalmanay waan doontay aabbaheeda wuu isiiyey ma lii xujeenin waxba kale liguma xujeenin waxaa la dhahay gabadha ma dhaqan kartaa ma biilan kartaa haa wallahi lacag ma haynin aniga nus dollar dhexda ka duleelo ma haynin markaan doonanahay markaan doontay kadib lee ogolaaday maalintii lee belamiyaan wacayaan dhahay abaayo waqtigii lee belamiyana waa soo dhow yahay anigana waxaan gacanta ku haaya malahani maxaan sameeyaa ilaahay xaggiisa wax ka imaanaya waa gooni ilaahay marka wax ku siina intuu ku imaado gacanta kuuma saaraaye addoon ayuu kuu soo cabiidinaa wax kugu soo dhiibaa gabadhii aan isdooranay qalbiyadaan iscalmaday jecelkaasna dhex maray ilaa heer gurigeeda aan tago aan ka hadlo mustaqbalkeeda aan dhow waa biilan karaa anigoo waxba haynin ilaahay qalbigeyga waa ii rumeeyey iyada naftirkeeda lacagtii aan ku aqalgeli lahayn gacanta iga saartay dhahday lacag dhan $1,000 ka haya muddo aan aruurinayay adiga qaado aabahayna u geey kisna jiif noogu soo gad iska dhig inaa adiga micnaha dhankaaga ay ka imaaday waa baxay jiifaan soo gaday gurigiiyaan keenay waa sharaxay inta kale aabaheedaan u geeyey gabadhii waa lee ogolaaday waa soo guursaday alxamdulilah waa wada dhaqanaa nolol qurux badan baana dhex martay habeenada ka mid ah anigoo shaqaynaayo aan gurigi ka soo daa horta noloshaan aaday u dhib badan tahay marmarka qaarkoodana waa kadis marmarka qaarkoodana waa lama filaan marmarka qaarkoodana waxay kula noqonaysaa waxaadan weligaan arkinba markii wixii aad samaysay kadibna tixraac markaad u samaysid waxyaabaha qaar waxay kaaga dhumayaan qaabkii nolosha ay ugu soo bilaabatayba farxadda markaas aa heshid aa ka weyn aniga horta meeshaan ka shaqaynayay qayb ka mid ah ay ka shaqaynaysay muddo 3 bilood ay shaqada ka shaqaynaysay aniga maan arkin indhadha ma saarin muddo kadib waa arkay gabadhii markaan arkay wallaahi aniga weligeena kuma fikirin waxyaabo xun inaan la aado amaba inaan shumiyo amaba gacanteeda inaan taabto xataa maradeeda markaan la sheekaysana inay gaarto igu adkeed micnaha markaan agteeda jooga waxaa noqonaya sida qof istaamo barafna dhex geliya camal waa qabowa gacmahan ka dhidida weligeen ma dhididan gacmahan ka dhididaa wadnaha waa igaraacmaa micnaha maantao dhan waxaan rabaa inaan fiiriyo inaan wax u sheegaan rabaa waxna uma sheegi karo marka dambe taleefonaan kala qoranay habeenkiiyaa markaas xoogaa isdhiirigeliyey arrintiiyaa markaas u sheegay wixii horta meesha ka guuxaayay iyo wixii ilaahay wato waa gooni qofka inaad ka hesho mararka qaarkood dhankaaga way ka imaan kartaa laakiin qof inuu ku jeclaado dartaada oo u ilmeeyo jecelkaas ilaahay keliya qalbiga ku abuuri kara waxay bini aadan samayn karaa maaha hadda ka hor wiila wuxuu i dhahay waxaan jeclaaday gabar aana garanaynin magaceeda aana garanaynin gurigeeda aana garanaynin tilmaam kaloo aan ku tilmaamo qof yaqaana xataa aana garanaynin waddadaan ku arkay xufay ugu dhaaftay jidka ee ku dhaaftay oo istaagay ilaa ay wuxuu sugaayay maalinta kale ee jidka soo marto habeenkii ma uusan seexanin hal mar ma fadhiisanin wuxuu ilaalinaya saanta meesha ay dhigtay markaasaa abwaanada ka mid ah soo maray jibriil oo ku salaamay markaasaa wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay maanta o dhan intaan kugu marooya waa kugu soo noqonaya waa taagan tahay ma fadhiisanaysid waxaa cunta ma raadsanaysid dhibaatada ku haysta maxay tahay ma jirin taleefon layskala hadlo mana jirin aalad kaloo layskala xiriiro mana jirin waxyaabo kaloo laysku soo qabto markaasuu fanaanka ugu sheekeeyey wuxuu yidhi waxaa i qabtay jaceyl aana garanaynin qofta aan jeclaaday heebteeda waxaa ahaaya xanuun aana garanaynin daawadiisa meel aan ka raadiyo waxaan u taaganahay oo aan aniga maanta o dhan u fadhiisan la'ahay wax ay yihiin aniga xataa ma sheegi kari laakiin meeshaan waxaa martay gabar qurux badan qalbigayga markii uu arkay sida leertii kale u daba raacay laakiin meeshay degan tahay ma aqaano waayaa magaceeda ii sheegaa la yidhi wuxuu yidhi magaceedana ma aqaano see loogu raadinaa qofkaas jecelka uu ka xanuun badan yahay siyaasadda wuuna ka adag yahay kursiga lagu fadhiisto oo madaxtinimada loogu tartamo wuu ka adag yahay jecelka laakiin waa jecelkee
jacaylkan hadda socda ma aha oo gabadha ku jeclaa markii ku dhaadaba afkale geliyayo oo faransiiska lagu dhagayo oo isla markii cala fanax loo soo baxsayo ma aha jacaylka hadda imaadiya waa ku jeclaa marada waa la feedooyaa mana rabo jacaylka loo soo jihaadi waaye dheh jacaylka loo soo jihaadi loo jilba murxi loo dhibaatoodi xeebta loo fadhiisti loo fikiri la murugoodi ظروف البوكوهاسة تقول عليهين لعك دي هيسلين حتى أتعيسل إيميل أنا هذا منك إيه جوالس كسومر مرامي يا أي منك لسكا سومريني مرضى محاواي يا معاوستاني أنا ما بقى مديدي معاني ما يراهني مجرى وركاسي maya abo ma jire warkaas meel ku xoore miirka adeege mininkaaga moogaanta ma la soo maraaye meelan aado mininkeyga waa la iska soo marmaraamiyaay ani ida darji ma wada fadhiisanin oo caadi ma wada sheekaysanin inaan meel ku balamiyo iska badaabo horta nafta maba isiinaysaba kaalay ii imaaw ama aan ku imaado inaan dhoo nafta maba isiinayninba kadib ilaahay calaf war isku keen daray wax yar aan wada soconay laakiin wax yar aan wada soconay ada bil iyo bar camal ay ahayd laakiin waxay ka badnaayeen kumanaan sano iyo 20 sano iyo 40 sano kaba badan ayay ahaayeen waxaa keenayo xiriirka wanaagsan qalbiyadii isdoortay daacadnimada la isugu sheekeynayo beentoo la ilaaliyey qof walbaba qaladka laga dhowray erey qaldan aan isdheheenin xiriirka oo wanaagsanaa waqtiga lagu ballamay oo aan laga bixeenin ballantana la adkeynayay taleefanka la iska soo wacayay wakaara go-ay aan la dheheenin qad kale ma uusan jirin si fiican oo qurux badan taleefanka cadiga wada sheekaysan jirnay internetka waxaan diidayna xataa mararka qaar connectionka in uu go'o waxaan kusoo shubanayna kaarka hormuud saasaan ku wada sheekaysanaynay kadib waa iscalamanay waan doontay aabbaheeda wuu isiiyey ma lay xujeenin waxba kale liguma xujeenin waxaa la dhahay gabadha ma dhaqan kartaa ma biilan kartaa haa wallahi lacag ma haynin aniga nus dollar dhexda ka duleelo ma haynin markaan doonanahay markaan doontay kadib lee ogolaaday maalintii lee balamiyaan wacayaan dhahay abaayo waqtigii lee balamiyana waa soo dhow yahay anigana waxaan gacanta ku haaya malahani maxaan sameeyaa ilaahay xaggiisa waxa ka imaanaya waa gooni ilaahay markuu wax ku siina intuu ku imaado gacanta kuuma saaraaye addoon ayuu kuu soo cabiidinaa wax kugu soo dhiibaa gabadhii aan isdooranay qalbiyadaan iscalamaday jecelkaasna dhex maray ilaa heer gurigeeda aan tago aan ka hadlo mustaqbalkeeda aan dhow waa biilan karaa anigoo waxba haynin ilaahay qalbigeyga waa ii rumeeyey iyada naftirkeeda lacagtii aan ku aqalgeli lahayn gacanta iga saartay dhahday lacag dhan $1,000 ka haya muddaan aruurinayay adiga qaado aabahayna u geey kisna jiif noogu soo gad iska dhig inaa adiga micnaha dhankaaga ay ka imaaday waa baxay jiifaan soo gaday gurigiyaan keenay waa sharaxay inta kale aabaheedaan u geeyey gabadhii waa lee ogolaaday waa soo guursaday alxamdulilah waa wada dhaqanaa nolol qurux badan baana dhex martay habeenada ka mid ah anigoo shaqaynaayo aan gurigi kasoo daa habeenada ka mid ah anigoo shaqaynaayo aan gurigi kasoo dahay waqtigay isugaysmayne waqti ka badan aan ku darsaday markaasay soo wacday waxay tiri maxaa kugu dhacay maanta roobna wuu da-ayo waxaan dhahay roob weynaa da-aayo jidka kuma socon kari baabuurna ma shaqaynaayo marka waxaan dhaha caawa shaqadaan seexanaa taleefka igu damisay waa soo baxday meesh shaqadii igu imaado waxay dhahday banaankaan taaganahay soo bax ee roob waa socday soo bax wallahi waa soo bax been kuma sheegayay dushay isoo saartay ilaa iyo guriga ila soo socotay abaalkaas ay ii gashay weligay ma ilooba ilaahu keliya abaalkeeda gudi karo marka jacaylka dhabta ah marmarka qaarkood waa iska xanuun dadka qaarna hadda waxay isku dayayaan jacaylkaas aan intaas rafaad usoo marnay in ay hadalo iyo waxyaabo oo baranka anaga aan sameynay isku soo dhajiyeen in ay micnaha intay wax soo saareen ee rabaan dadka ay emotionkooda inay ku bedelaan ayna ku baabi'iyaan aniga magaca maroraan samaystay dadkan maroraan samaystay oo wanaagaas iyo ixtiraamkaas oo na dhex maray gabadhaas qalbigeeda mar hore ay isdoorteen
dad ilmi isku dhalayana dad hadda kala tegi kara manihin meeshay aniga xataa haddii ay wax ii sheegayaan luuqi iigu sheegi lahaayeen publiga inay soo dhigaaneen views ku raadiyaan ay ka doorbideen laakiin qof kastaba ilaahay qaawa ku irsaaqaaye haddiiba irsaaq aniga mustaqbalkayga inaa baabi'isaan oo idinkaga soo gelaayo waxaan diyaar u ahay aniga inaan idinku taageero ku socda waa iska xaal adduunyo والله حال الدنيا ما شاء الله الحمد لله والله taariikhdaasaan ka soo maray jecelkayga saaxiibay ما شاء الله والله طريق في عنك صومرتي بابجي أدنى إن شاء الله بإذن الله كريم ما أنت هذا أنت إيه هذا نولا هذا قبل اللي وحلق على دردار ما معها هذا بكوجو أنت هايبو هذا ناس كإلالي ولقى إنه الشيطان كان حق له وقبل أسمع ميسين أنا قد وحياة بدنا سمي أنا يويل سبدنا سكسود الجين وإزجور سدين سامواي كم واي أنا يويل وقبل ولا شيء ده احترام أنا قد حيو برانج مرة يقولون كسمينا يدون أوجين إيه قرب كي قبضتي تسوى جرين يبغى تيك توك هيس أصلا صور دقني مستقبل أنت سلقس في فكرة ما نقول بابي إنكروا ضد كان عرور معها ضد كان حكوا جران ضد عاقلة أغلى يقول صاحبك وحياة ويفهم يعني برانج تدبي أولا بنا يعني بس كم سمينا يعني صحيح قف يسرى دينا يقف كرنا ولا كلا يقنا عندك نورس شيء هذا الكل كم بابي أنا ما نقول بابي إندونو أنا يومين أنا نقول صوت جاي وأنا نقول صوت جاي احترام أنا قد حيو قدرنا أنا قد حيسو وحنا وقتها أنا جينا نحوك على هي سنة أفكس أنكو حملنا كاب كان وكيدي كرو إن أنكو بيلا إذا بوقتها هذه أن سمينا أنا مرة أن سمينا يعني وإذا ما قصنا سوشغينونا مرة أن سميناها يعني كده ما عمل حين يسني كجرين وحنا جرينا هقادنينا وحنا سعنينا أمده وشيجنا حيابها وناسن منا وناسن كرادية في يسوى هلي رزقه إلى يكون قريب بن أدم وكاعلين كتمانهن لكن إنها مستقبل دميسو في يسوى كرادين إنه كل يلاني أنا إذا ما عواي ملهن في ذياش وأركا وأكسي سعنا باب جاي لواي أنا قولي وإيد السنياي ولاد إلهي وإيجسي ماشا وحن كيلان كعنا وبلا توفيق أنت سؤالتنا وحن تغنى إلهي خير هكذا سهلة مركز لنا إن شاء الله بإذن الله dadka way og yihiin aniga kumantii badan lagu soo qoraayay babaje waxaas u bixin babaje ana waa iska fahmi karaa waxaas wax weyn ma aha أنا هذا بخل مرة إيسو قرايين ويل ساسمي aniga wiila waa soo shaqeynaa waan isla shaqeyn doonaa cidda ka xun iga taala kumantay soo qoraxta uma aqrinay ani ciddii wiila wax ka sheegta ana wax iga sheegta صح قبر ولا شاء that's it saas waaye asracda diiday haas qaramsantay dah caashaqu waa dhab waa loo dhintaa malahan kani waa caruur malahan kani waa ciroole marmarka qaar caashaqa cugdad buu kugu reebayaa iyo calool hor aadan ka bixinin ebed wuxuu ku geysanayaa dhaawac haddii dhakhtar walba lagu geeyo aan lagu dabiibi karin culamadoo dhan haddii lagu geeyna qur lagu saaro uusan kaa bogsanaynin ilaa qof dhibaatadaas kuu geystay agtaada ka imaado rabbiga ay gacanta ka saarto mooye كيف باته fiyooraha waa aragtay siduu u qurux badan yahay geedka markii uu ku yaalo markaas dhahday fiyooraha soo gooy wuxuu leeyahay qodaxaas aan ku mudin dhaawac ku gaarsiinin dhiig aan kaa imaanin fiyooraha ma soo goyn kartid jecelkana waa noocaas oo kale jecel aan dhaawac lahayn aan dhiig kaaga imaanaynin aan u dhibaatoonin aadan u murugoonin aadan u welwelin aadan waqti badan kaaga bixin aad u soo jeedin jecel lama dhihi karo gabarta aad jeceshahay marka inta waa talaafka ay kugu dambiso naftaada kuma siinayso mar kalena ha ugu celinin maanta dhan waad ku celinaysaa ilaa ay 100 jeer aa waceysaa waxaad u arkaysaa inay daqiiqadaas walba adiga aad waceyso inay kaa qaban doonto niyad waxay ku leedahay wac ku celi hadiidin waxaa ku wada culays aadan xamili karin tankiisana aadan sheegi karin waxaa ku haya hami ka murug badan kana weyn wax walba dunidan saaran xitaa haddii uu dhaho qalbigaaga qof kale ayaa loo dhiibaya ku ilaalinayo ma ogolaanaysid haddii ay farxun tahayna ma yaqaano haddii ay qurxan tahayna ma yaqaano
keliya waxa ku hayo waa jecel qofka jecelka hay dembi ma lahan wax wuu jeclaaday oo keliya waad weyn kartaa waadna heli kartaa laakiin haddii aad heshana silacaad ku heshay haddii aad weysana silac iyo dhibaato iyo murug wuu kula harayaa dad oo waxaan arkay aniga dhaawac u geysto oo la goostay oo ilaa hadda aan kasoo kabsanin way iska guursadeen xaas kale laakiin qalbigooda weli waxaa ka guuxayo qoftii quruxda badneed qalbigaas hanatay nolosha la siiyey naftii ay ka hariweysay indhihii ka jeesan weeyeen darteeda ay u ilmeeyeen habeen badan loo murugooday erayo badan oo khaldan haddii loo dhahay xataa qalbigaas uusan quusan waayo baabdada qoysiisa walaa meesha ku jiraan oo tigeen क्या बात है बाबा जी क्या बात है kaasaa rabaa ine سؤال مكودي أم إجابة 40 su'aal haddaa i weydiisid 40 jeeraan kaaga jawaaba hal ma ahan saaxiib beeladad nagu cusubtiin subscribe dhaa gambalaalkana furta si ay idiin soo gaaraan waxyaaba xiisaha badan ee markaasi aan soo dhigno haddaad horey inoola joogtona madaxaad inoo saarantihiin dhaliil ammaan bogaadin talo iyo tusaale haddaad inoo haysaana waxaad inoogu reebtaan qaybta commentiga waan idin aqrin doonaa